حقيقة حزب الاعتصام نوام dadku in badan bay maanta اعتصام maqleen caawa ha dhageystaan اعتصام muxuu maxaa loo sameeyay maxay doonayaan maxay dawladaha ka aaminsan yihiin maxay sameeyeen maxay soo wataan manhajkoodu u dhigay waxaan filayaa inaan deyn masaa'isha qaarkood lagu radiyo mooyaane aan xaqiiqadooda la qeexin xaqiiqadooda ayaan qeexaya anigu waxaan ka duulayaana waa waxaan shaahiday iyo waxaan akhriyay labadaba اعتصام وحزب ديني أو سياسي ديني أو بمعنى الدعوة دي الدين تينو كشقين أيو شيء سياسي أو حكم حزب حكم دوري هذا سياسي مقشو عرفا واصطلاحا waxa looga jeedaa waa xukum doon iyo kursi doon xaq baa la igu leeyahay in lagu raa bayina keen wala tu burhanak in kuntum saadiqin soma bayinadana waa keeni doonaa anigu waxa loo sameeyay sida ay sheegeen raggii sameeyay madaxda u sareysa ka noqday dacwad dadka in wax loo dhigo wanaaga la faro xumaanta laga reebo iyo talab sulta wal wusul ilayha iyo in xukum lagu gaaro labadaas loo sameeyay wuxuu leeyahay qaab dhismeed shabaha qaab dhismeedka dawladda madaxweyne leedahay madaxweyne uu leeyahay hadda waa Bashiir Salaadka xamar fadhiyo way isaga waraaqaa ku qorta marka la wareystana sheega wuxuu qarsadaba maaha wuxuu leeyahay golayaasha dawladda oo kale waxa loo yaqaano shuura al-aam oo golaha u sareeya oo gobolada rag laga soo xusho laga soo doortay ayaa ku jira iyo shuura al-mahalli oo gole gobol kasta uu leeyahay magaalada tusaalahan haday degmooyin leedahay degmo kasta waxay leedahay wax loo yaqaano shucbo waa golaha ka hooseeya tusaalahan degmooyinkii oo kala ah golayaasha ay degmooyinku leeyihiin ee laga soo doorto shucbo kasta waxay u qaybsantaa 4 usro shucbadii baa furuuc si yeelanaysa usradu markaa waa halka ugu hooseysa cudwiga ama qofka xubinta ayuun baa ka hooseeya xubinta xataa wax ka sii sheeyay jira qofka xubin ka noqday waxa jira wax loo yaqaan hawaamishta laftoodu laba u qaybsamaan haamishi bislaaday iyo midaan wali bislaan ka bislaaday waa ka yaani in badan laga shaqeynayay hadda u diyaarka in xubin laga dhigo kaan wali bislaan meel yar durugsan baa lagu hayaayo wali xubinnimo uma diyaarsana laakiin sidii xubinnimo ugu diyaar garoobi lahaa ayaa laga shaqeynaya waxa uu leeyahay xisbigaasi daahir dadka u muuqda muuqaal dadku ay arkayaan oo wadaado masaajidada ay jooga meelahaas oo dadka wax u dhigo khudbadeeyo oo mararka qaar koodna aad loo weyneeyo si dadka indhahooda ay u qabtaan oo loo yiraahdo waa culimadii wadanka iyo baatin kal iyo in qarsoon oo khawaastu ay og tahay qaraaro iyo go'aamo la gaaro arrimo la fuliyo iyo waxyaabo la halmaala xisbigaasi dadkan muslimiinta ee uu ku dhex nool yahay wuxuu ku qaybinayaa xisbinimo dadka xaqi dadka waxay ku qaybiyaan xaq iyo baatil ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka furqaan ku sheegay نبي محمدنا waxa lagu sifeeyay inuu farqa bayna naas ay bayna al-haq wal baatil isagu xubinimo dadka ku kala geeya oo dadkii wadanka ku wada noolaaba qaar xubna ka yihiin qaarna banaankii ka joogan bal dadkii magaalada ku wada noolaa bal dadkii xaafadda ku wada noolaa dadkii guriga ku wada noolaa laba walaala niba wixii ga warramay sheeko la yaab loo taa ayay xusuusisay arinta noocaas marxaati waa laba nin oo walaalo aad isugu eg mid حسبي ورديمات بو حبين كي ككلام حبين كما
marka nin kale isaguna urur diimeedka xubin ka ah ayaa isku khalda kaan xubinta ahayn buu waramaa wixii lagu shiray iyo wixii lagu heshiiyey wixii oo dhan buu sheega aniga waxa iga waramaya ninkii xubinta ka ahaa urur diimeedka ninkii baan la faqay waxaan ku ruwani horta waxaan ku weydiiyey saa tahay soo baxaa dhacay de ninkan aad u warantay aad wax walba u sheegtaa de waa walaalkay anigii maaha sirii xisbigeen oo dhan baad u sheegtay ninka marka isu ekaanshahooda ayaa khalday marka waa walaalkii labadii walaalaha ayuu midba layn raacay midba xisbi u galay marka labada qof saas uu kala kaxaynaya asal waxa uu ah xisbigan oo sababta loo sameeyeyba ay tahay in aan dowladahan caalamul islaamiga xukuma duwal islaamiya inay yihiin inaanu aqoonsanayn asalku waa kaas bal waxay u arkaan inay kufri dowladuhu ku jiraan kufri waxba inaan meel soo fadhiisto oo yidhi hebel waa muslim waxba tari mayso maxaa kutubta ku qoran maxaa canjiladaha ku duuban madaxdii xisbigu maxay yidhaahdeen odayaashii waaweynee hogaaminayay maxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa ninkaasi dee isagoo aragtidiisi shaksigaa inuu ka hadlay taana in badan haddana waan sheegay marar hore oo sanawaad ka soo wareegeenna waan sheegay in ay dad kale afkaar duwani xisbiga ay isugu tagaan laakiin waxaynu ka warramaynaa maxaa u asal ah oo markii la aasaasayey lagu heshiiyey ragga hogaamiyaase maxay aaminsan yihiin taasaynu ka hadlayna inay dowladahani kufriya gaalnimo ku jiraan oo ay ku dhexdhaceen shirku aaca watashriic ayay aaminsan yihiin waana sababta loo sameeyey xisbiga si dowladahan loo rido oo dowlado kale oo iyagu u arkaan duwal islaamiya inay yihiin loogu bedelo arrinta noocaasa ka dhabaynteeda iyo hadafka gaadhistiisa waddooyin kala duwan bay u maraan ay ka mid tahay in dadka dowladda lagu kiciyo mudaharaadda la abaabulo iyo thawraad kacdoomo mawjaddaa dabeetana inta la fuulo in halkaa kursiga laga tiigsado oo lagu fadhiisto waxaa kaloo ka mid ah in safiinatu dimuqraadiya la fuulo doonta dimuqraadiyadda marna kufri baa lagu sheegaa marna iyada lafteeda kursiga loo fuulaa si ay baddaa siyaasadda ula marto kadibna ay baroosinka u dhigato fii qasri ri'aasa guriga madaxtooyada waxaa ka mid a waddooyinka ay u maraan in hub la qaato si loo xaqiijiyo riyada noocaasa oo khilaafadii loo soo celiyo dowla islaamiyana loo keeno marka ay suldada gaadhaan iyo kursigana xaalkoodu sida haalibkaa siduu noqdo waynu sheegnay waaqica iyo waxay indhuhu arkaan baana markhaati ka ah waaye xisbigan in loo sameeyey in kursi lagu gaadhay ile waa itixaadkii oo magacii laga bedelay sida iyaguba ay qireen maxaa daliil u ah anu waxaan daliishanaya ragga madaxda ah hadal ay ka warramayaan mawaaqiftoodana maa hadalkaan ka soo naqilaya wixii jamaacaadka loo sameeyey wixii lagu heshiiyey bay ka warramayaan marka way ka duwantahay qof aragtidiisa ku hadloo mas'ale ka hadlay oo nin madaxa wixii jamaacadiisu ay u samaysneedna ka hadlaya hadday leeyihiin dee waa beentii oo wax jira maaha dee inay ku beeniyaan bay ahayd ninka koowaadaan ka soo raraya waa sheekh axmed cabdisamed ra-iisu lmajlis tanfiidi lilictisaam ayuu ahaa madaxa golaha fulinta ee ictisaamka wuxuu ihi isagoo ka warramaya xarakaadkan iyo ururdiimeedyadan siyaasiga ah manhajkooda iyo waddadooda oo ictisaamkuna uu ka mid yahay kana jawaabaya su-aal la weydiiyo cad waxaa lagu yidhi waxaa laydinku sheegaa inaad kursi doonaysaan bal arrintaa ka warran wuxuu ihi taasi waa xaqiiqo inaanu kursi iyo madaxtinimo u soconnaa waa xaqiiqa buu ihi waxaan kugu idhi itixaadkoo qura ma ahee jamaacaadka islaamiga ah ee caalamulislaami laga sameeyey anigu ka hadli maayo tabliiq iyo dad sidaa u dhaqma
iyo jamaacadkan gadaal ka yimi ee waqti dambe yimi ee magaca salafiyada qaatay eele kutub baanu akhriyeynaa xukumkana xukaamtaha loo daayo hadalka hoosta ka xariiqa يعني الدعوة السلفية إشارة وحانو كو إيضينيا وأن من اسكحروا كو قاب صدي كتبان ولقينا حكم كرنينكا هاي ديوانا السيدة إنو لين هاي بطاس نوحي لين مرة دو مسلم يهي إن حكم كاللغو قاب صدا ما بنانا نبي قانا الصحابة بلن كي قادي شري وأن لا ننازع الأمر أهله تلاضع عدة هاي سينا نكو قبصا كحديث كان النبي عليه الصلاة والسلام حديث لم يتكا هي الدعوة السلفية كدوليس حقر يقول ساكت دوين هذا وصام صور رقمان تم الله أنه حكم دوني ما إنه جماعة دعوية أنه هاي مركين ده هدتكو يكسو تشيستين بين سيران سكير تشيدي مركزين تالي لكن إنك حقوقال كهاي ما ضحضها هواكاس مركا لقى ريبة تبليغية ضدك الصلاة ورقمة يا جماعات كان مقع السلفية حنبار سنة قدال كيمي إلا كتب بانو دغينا حكم كان حاكم كهيسته لو دايو marka laga reebo buuri waxa jamaacadka loo sameeyay in la sameeyo dawlad shariicada dabaqada dadka ku xukunta caalamka kula dhaqanta day aaminsan tan joogtaa inay tahay dawlad islaam waxa ka dhinaadaan waa ka khaldanaadaan be ma yiraahdeen waxa xisbiga loo sameeyay in dawlad islaam lagu keeno markaas waliba wuxuu leeyahay dadka qaarkood haday khaatiyaan istaageen macna dawlad raadintii bay ku daaleen mar dagaal bay galeen mar doorashay galeen way ku faakaceen marka haday ragga qaarkood khaatiyaan istaageen oo amalkan ay ka daaleen de hum washaanu iyaga taas u taala laakiin ujeedada xisbiga loo sameeyay waa in dawlad islaam lagu keeno de kuwan jirana meesha laga saaro إلا الدولة دوش على قص هاري مايين وين التيورا ماشى كبح هذا صومع وكاس وليبا هذا كان وقت فوق معه دور الله هاي بريه هراء سيدنا من سنين باتشيري شرتيو وأنا أرنت نوع عاسية كان نقولنا يا خلط كوانو صحنا ده وحبين نقول الله هاي لكن هذا اللوحة ده عصبوي ورئيس برد ويد الله يشيبه سيدا كوري واي حسن داير اويس الا ايمك وحو شيغان انه اعتسام yahay iyaguna kumay beenin waxaanu ka gaaray اعتسامka نائب الرئيس امير ku xigeen ayuu ka noqday waliba muddo dhowr iyo 10 sanadood ayuu xilka noocaas ahay saacidi xogaalka waa ay sheegeen wuxuu ka waramayaa aragtidiisa ma ahee wixii ay isku waafaqeen ay ku heshiiyeen buu ka waramaya wuxuu leeyahay labadii jamaaca markii la mideeyay waa waxdadii al-jamaaca al-islaamiyya ittixaad u dhashay ayaanu kulan baanu qabsanay waxaanu niri war maxaynu sameeynaa ilaa waxaynu doonaynaa dacwad qura maaha dawlad islaamiyya aynu doonaynaa axzaabtana waxaanu sameeynay buu leeyahay sidii dawlad islaamiya wadanka looga sameyn lahaa laba wadoon baana jiro dawlad lagu gaari karo marka waxaan isweydiinay labada wado teebaynu maraa waanu fikirnay waanu wada hadalay buxuuth baanu sameynay buxuuth kala la akhriyay buxuuth cilmiya baa la keenay labadii dariiqo ee xukunka ama kursiga lagu gaari lahaa baanu qiimeyn waxa kulamada ka qayb galay buu leeyahay rag dibadda tagay sida Pakistan iyo meelo kaleba محمود عيسى شيخ لرابو كحصي waxaanu niri ma waxaynu maraa wadada baarlamaanka doorashada inuu ka qayb galaa baarlamaanka inuu aqlabiyad ku yeelana halkaas aynu kursiga sarana u maraa si aynu dawlad islaamiya u dhalino wali waxay ku beegantay buu waqti siyaad barre lala taliyo lagu yiri ونيو arrimaha fududeeyo oo dadka siyaasadda u xiran sii daayo xisbiya fur wana maalmihii dagaalku ka socday buu waqooyiga waa 89 meelaha markii qaxoontiga aynu ku maqnay weey ayaa halka xamar ku shirayeen oo si dawlad islaam ay u dhaliyaan ay ka shirayeen odayaashaas
marka waxa la qiimeeyay buuri wadada in doorashada iyo baarlamaanaadka la maro waxa soo baxday cid wax ku gaadhay inaan jirin oo markaas waxna aan lagu gaari karin hadaba maxaynu sameynaa hadaba dii wadada soo xirantay faqarrarna anna tariiq al-jihad huwa sahih waxaanu go'aansanay buuri in la jihaada inay tahay wadada saxda ah meel kale lagu duulaya ma jirtay waa Soomaalida dhexdeeda uun jihaadku hadda la soco ka dhicin sheekhow dawladda kale la qabsanayo lagu duulaya ma jirtay waa Soomaalida dhexdeeda markii aanu go'aansanay buu yiri dagaalka arintaasina ilaa 2010kii manhajka ictisaamka oo ku qorayd buuri in wadada xukunka loo maray ay tahay ad-da'wa iyo al-jihad fi sabilillah المهم منهج كانوا دورنا أنا قوان سنة وكاسبوري marka dagaalkii dawladda lagu doonayay wuxuu u baahay ciidan Soomaa waxaanu bilownay marka inaanu ciidan aasaaso ayaanu bilownay isagu de askari buu ahaa mala cornel baabuha waxaan soo jeediyay buuri war meeshii jabhada kala dagaalamayay SNM iyo USC haday kuwaasi meesha qabsadaan de cidlaynu ku dhacaynaaye warbaalka dagaalka waa la bilaabaa una imika baynu bilownaan dhibuudaan hadda baynu bilowno si aanay saaxada inooga qabsan marka waxa la yiri buuri war ma rag baynu ciidan baynu tababaranayna markay dawladdu jirtay baana tababaro hoose jiray buuri waxa waxa jira wax loo yaqaan maktabul jihad niman dagaal u diyaarsan bay ahayn maktabul jihad macnaheedu waa wasaaradii dagaalka wasaaratul harb marka hore way jirtay marka beeraha iyo guryaha iyo meelaha qarsoon bay rag ku tababaran jireen buuri arintaasina waa warde muuqdo oo aan qarsoonayn inta dibad wuxuu sheegay wuxuu dhacdooyinka qaarkood qaraar kuma iman yaana dagaal Kismaayo kale iyo dagaalo meel kale ka dhacay laakiin wax macno oo dhacda ay sameynaysaa ma jirto mar hadduu manhajku yahay iyo go'aanku in la dagaalamo xoog dawlad lagu keeno iska ilaaliya arinta noocaas ah leeyahay ku khaldin ragga difaaca waxay yiraahdaan dagaaladii dhacay looma dhamayn ragga qaar kood un baa go'aanka iska gaaray wax macno taas haba yaraatay ay sameynaysaa ma jirto manhajkiinu ma aha in la dagaalamo goorta la dagaalamaya berri bay noqon kartaa saa dambe noqon kartaa saa kuumay noqon kartaa sanadka dambe noqon kartaa laakiin manhajkiinu horta ma aha in la dagaalamo xasan daahir sidaas uu yiri kumareedan beenin shaykhda qaar kood oo markaa madaxda sare kamid aha oo aan weydiinay waxay yiraahdeen qaraarko qoran baa naloo keenay saasa ku qorayd in la jihaado in jamaacadu go'aansatay halka laga jihaadayana waa dadkan Soomaalida ee muslimiinta dhexdooda waxa uu yiri xiwaar kale ama dood isaga iyo culimo salafiyiin dhexmartay Sheekh Cabdullaahi Diiri Abtidoon oo dagaaladii laga dooday waxaanu marka horeba isku waafaqsaneen buu yiri go'aanka iyagu waa dawlad islaamiya dawlad al-islaam an nuqima dawlad al-islaam dawladda islaamka inaynu taagno taa waan isku waafaqnay arrintaasina waxay ka dhacday buu kulan اتفقنا أن نجاهد وأن نستعد له waxaan isku waafaqnay inaanu jihaadno jihaadkana aan u diyaar garowno anigu Sheekh Cali Warsame oo amiirkii jamaacada ahaa ayaan 1991 magaalada Berbere ku weydiiyay anigoo daayar markaan arkay muaskaraadkii la sameeyay xarumihii tababarka military oo itixaadku ay ka sameeyeen Boorame Burca ka sameeyeen saasun daw raac ilaa xadka Kenya laga galiyo markii dambana Ethiopia waxaan ku uri sheekhiyaal la dagaalamaya ilaa imkaan aniga laftiisa isweydiiyaa aniga aqoontaaduna waa gaabneed da'daaduna waa yaraydeen talo bariga maxaa su'aasha ka keenay sheekhu wuxuu igu jawaabay cidna la dagaalami maayo waa la diyaar garoobaya inta aanu ka haya waa inta aanu waxba ku darayn waxana aan ka reebahay cidna la dagaalami maayo waa la diyaar garoobaya waay ninka markaa maanta yiraahda
jamaaca dacawiya aanu nahay dowlad dooni mayno dagaal iyo waxaa uma jeedno waa laba midkood inuu dadka been u sheegayo oo arrintaasi ay siyaasad ka tahay mowqif siyaasi ay ka tahay iyo inuu isaga aragtidiisa isaga u gaarka uu ka warramayo nin mashaaikhdooda ka mid wuxuu ihi isagoo ka hadlaya dagaaladii soomaaliya ka dhacay dadkii salafiyada u intisaabaya saddex bay ugu qaybsameen buuri qolo leh waa jihaad sax oo macnaa ha la wado waad garanaysaan qoladaas oo ilaa imika wada iyo qolo halkoodii hore taagan oo le waa fitno qoladaana waad garanaysaan soo ma iyo qolo le waa jihaad laakiin hadda munaasib maaha waxaa jira wax loo yaqaano istiraaxatu muxaarib nasashada dagaalyahanku marmar buu dagaalka u yaro nastaa markuu arkay inaanay dabayshu xaggiisa u dhacahayn dabaysha guushu isma maqiiqee hubku yaro dhigta hadduu doono qoryuhu aastaa nin sheekho weyn baa wuxuu yidhi yo raggii aasaasay ka mid a haddaad xaraki maqasho waa laba midkoodu qori dhacaya iyo qori buuxa oo tiirsan oo isaguna dee diyaaru ah in maalin waxa weeyaan la rido marar badan bay idhahdeen dagaalkaanu iska daynay haddana intaa dabadeed ayay dagaalo dib u bilaabeen oo dib waxa weeyaan ay u galeen mar ay ku qaybsameenna waa jirta mar waxa weeyaan waxaa dhacday dowladdii shariif qaar wasiiray ka ahayd qaarna xisbulislaam bay ahayn way la dagaalamayeen qolo saddexaadna wasiirana kamay noqon lamanay dagaalamin waa fitna waxaan socdaa bay lahayn saddexdubana waa ictisaam laba tusaalaan u keenayaa in mararka qaarkood dagaalyahanku uu dagaalka ka yaro nasto labadaba waxaan ka warinayaa laba ninoo ictisaam mid uu dhintay hadda ilah naxariisto midna waa nooli daan magaciisa sheega wada garanaysa xataa wasiir buu ka noqday somaliland ninkaa wasiirka noqday waxaan ku udhi walaal hebelow bal arrintii dagaalada ka warran miyaad iska dayseen xaggaanu ku daynay buu ihi tamaruun baanu weynay maalintaanu tamar hello ku hargeysahaasaan ku afuufaynaa buu igu ihi ninka labaadna madaxtooyada somalilan wasiir soo maray oo wasiirka madaxtooyada ka noqday ilaahay baa subxaana watacaala markhaati ka ah xajkaanu joogna isku qol baanu noqonay horena waa isu naqaan ayaa wuxuu igu yihi waxaan u noqday la taliya markaasaan ku ihi oo sheekh soodii sida kalena aaminsanaa in lagu afuufana soodigii aaminsanaa markaasuu igu yihi war sheekh waxaan maad fahmine ama libaax baa la noqdaa ama harag libaax baa la xidhaa ana waa kaadh yaroo aan meelaha ku maraa buuri de marka haddaad imika madaxtooyadiiba gashay oo ad gundhada jartay miyaanad wixii xaggaan iskaga daayay buuri wallaahi maalintan u haata helo on ku afuufaya buuri kaadh baanu sitaa la taliyaha wasiirka madaxtooyada ee somalilan marka arrimahaasi ka fiirsasho badan bay u baahan yihin waaye